Welcome to Boleo Media and subscribe. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkan waa Boleo Media barnaamijkan aanu amaanta idin hayno waa barnaamij la yaab leh waxaanu macna barnaamijka idin hayno wuxuu ku saabsan yahay arooskaas oo dhex maray wiil Soomaaliyeed iyo gabadh South African ah arooskaas wuxuu ka dhacay dalka South Africa ama Koonfur Afrika sida aad u taqaanid waxa waliba kaaga daran gabadha iyo wiilkaasi waxay iskuursadeen 2010 arooskooda kadib guurkooda kadib waxay soo dhaleen laba ilmood dabcan sida aad ka arki doontaan arooska xafladii hadda la dhigay iyagoo laba ilmood leh bay hadda xafladii arooska ay dhigteen bal hadda waxaanu rabnaa xafladda arooska iyo qaabka ay u dhacday inaad hal mar nala daawataan idinkoo mahadsan حسن عبد علي وويل سوماليد waxauna dhiganayaa xalfada arooskiisa balse xalfada maanta ma aha xalfadii Soomaalida South Africa ay hore u dhigan jireen waxauna sheegay in xalfadani maanta uu dhigay xaaskiisa ay tahay xalfad uu muddo ku taameeyay waxaana noo sheegay in dareenkiisu aad u faraxsan yahay maadaama uu u rumeeyay riyada xaaskiisa I like this qaarkood way la yaaban yihiin arooskan cajiibka ee hore aan uga dhicin dalkan South Africa ama Soomaali iyo South African ay isku guursadaan halkan Xasan waxa uu noo sheegay inuu ku faraxsan yahay guurka gabadhani oo lagu magacaabo imika Faaduma waxa uu sheegay in gabadhani markii hore ay haysatay diinta Kirishtanka balse ay qaadatay diinta Muslimka markii ay isguursadeen daawadayaal halkan aan iminka ku suganahay waa goobtii arooska uu ka dhacay waxayna ka dhacday qaybtan iga dambaysa waana arin uub ku ah Soomaalida South Africa sheekada ayaa waxa xiiso u yeelaya markii uu guursaday ama uu mehersaday Xasan gabadhani waxa ay ahayd 2010 waxayna u haysaa laba daawashada iyo muuqaalka kadib ee daawateen waxaan rabnaa dadka Soomaalida iyo sida ay uga falceliyeen in ajnabiga la guursado dad badan baa ka hadlay dabcan arooskaas oo xafladda laga wareystay dadkaasi waxa ay ka dhaxeen reaction-kii ay ka bixiyeen in uu intaad Soomaalidu qofka Soomaaliga inuu guursado qof kale oo ajnabi ah waxa ay dhaxeen iyo reaction-kii iyo hadalladii ay ka bixiyeen iyadana waa nala daawan doontaan dadka qaar ayaa waxay qabaan in guurkani uu yahay guur qaldan magacayga waa Nuur Yuusuf Cali ku magac dheer abwaan Nuur Gurey run ahaantii waxaan rabaa inaan iraahdo gabadha ajnabiga ugu fiican waxa ka fiican gabadha Soomaaliyeed tan ugu liidan waan guursaday qof ajnabi waan guursaday laba wiil ba ii dhashay waxaan ula jeedaa sokorta markaad hanbato way macaan tahay laakiin macaanka aad hanbato ku egyaa asaga laakiin timirta marka cunto marba mar ka sii dambayso ayuu sii macaya waxaan ka wadaa dhaqanka ajnabiga ah ee guursato wahamta hore laakiin raasimaalkiisa dambe ama mustaqbalkiisa dambe awlaadaada taada iyo dhaqan bulsho dhaqaale wax walbaba waxa weeyaan waxaad noqonaysaa gabaabs bismillaahir rahmaanir rahiim saamiya daahir salaam baa leedahay marka waxaan ka hadlayaa guurka qofka ajnabiga ah guurka qofka wadankaaga ah markasta waxa fiican gabadha wadankaaga inaad guursatid laakiin qofka dooqiisa waa in la ixtiraamo qof walba dooq buu leeyahay waa tahay daawadayaal